muuqaalkii u dambeeyay waxaan joognay magaalada Kunming ee koonfurta dalka Shiinaha, gaar ahaan halka la yiraahdo Kingdom of Little People. Haddaba inta aynan Shiinaha ka gudbin, waxaynu aadaynaa dhanka waqooyi ee dalkan, gaar ahaan magaalada Beijing ee ah caasimada dalka ugu dadka badan caalamka. waa magaalo taariikhi ah oo laga helo ilaa 7 goobood oo ka mid ah liiska dhaxalka adduunka ee UNESCO, wuxuuna asaaskeedu u laabanayaa 3000 oo sano ka hor, waxayna dhacdaa dhanka waqooyi ee dalka Shiinaha, wuxuuna magaceeda ah Beijing macna ahaan yahay caasimada waqooyiga. magaaladan weligeed looma aqoon jirin magaca Beijing ee waxay soo yeelatay magacyo kala duwan, wuxuuna magaca ay maanta sidata u baxay sanadkii 1403. Beijing waxay caasimad u noqotay 6 dowladood oo Shiineys ah oo ay ugu dambayso dowladda Shiinaha ee haatan ama The People's Republic of China, waxayna magaaladan u talinaysaa dalka Shiinaha in ka badan 700 oo sano. waa caasimada Shiinaha, laakiin ma ahan magaalada ugu weyn oo waxaa ka weyn magaalada Shanghai. Beijing waa magaalada labaad ee ugu weyn dalka Shiinaha, waxaana marka la eego xitaa tuulooyinka hoostaga ku nool ilaa 22 milyan oo ruux. marka laga yimaado weynaanta iyo dadbadnida, magaalada Beijing waa midda ugu badan dhanka dalxiiska iyo goobaha taariikhiga, oo magaalada Shanghai waxay caan ku tahay dhanka ganacsiga, waxaana ku taala dekedda ugu weyn caalamka. Beijing waa xarunta dhaqanka ee dalka Shiinaha, waana magaalada ugu muhiimsan marka la eego dhanka dalxiiska iyo goobaha taariikhiga, waxayna soo jiidataa in ka badan 4 milyan oo dalxiisayaal caalami ah, balse dadka Shiinaha ku nool ee booqda magaaladan sanadkii waa ilaa 140 milyan. waa mid ilaalisa isla markaana sharaxda dhaqanka gaamuray ee Shiinaha, waxaana ku yaalaan matxafyo badan oo dadku booqdaan sida The Capital Museum iyo matxafka qaran ama National Museum of China. sidoo kale magaaladan waa mid si weyn ugu qani ah marka la eego dhanka cuno dhaqameedka, taasoo la soo falgashay boqortooyooyin dhowr ah oo soo xukumeen magaaladan, waxaana cuntada ugu caansan ee magaaladan lagu magacaabaa Peking Duck, waxayna cuntadan ka mid tahay cuntooyinka qaran ee dalka Shiinaha. dadka magaaladan waxay aad ula baxaan magaca Wang, waxaana magacan inta badan sitaan jiilkii hore ee magaaladan. boqolkiiba 11 oo bulshada Beijing ayaa magacooda oo dhameystiran ama abtiriskooda laga helayaa magaca Wang. magaaladan waa midda saldhigga u ah luuqadda rasmiga ah ee dalka Shiinaha ee lagu magacaabo Mandarin. waa luuqad lahjado badan, balse lahjada rasmiga ah ee saldhigga u ah luuqadan waa lahjada lagaga hadlo magaalada Beijing. inta badanna dadka magaaladan ma yaqaanaan luuqadda Englishka, balse waa halka ugu wanaagsan ee lagu baran karo luuqadda Mandarinka, oo ah luuqadda ay ku hadlaan boqolkiiba 70 oo dadka Shiineyska ah. dadka booqanaya magaalada Beijing waxaa lagula taliyaa inay kaxaystaan qof yaqaana luuqadan ama inay qaataan buugga yar ee dadka haga. waa magaalo leh nidaam horumarsan oo gaadiidka dadweynaha ah oo dadka u sahla inay si fudud ku gaaraan halka ay doonayaan, waxayna leedahay tareenada mara dhulka hoostiisa oo qiimo ahaan lagu jaangooyay duruufta dhaqaale ee bulshada magaaladan. waana magaalo leh 4 saldhig ama boosteejo tareen oo waaweyn iyo 3 yaryar. magaalada Amsterdam haddii ay tahay caasimada loogu adeegsiga badan yahay baaskiilka, haddaba Beijing ayaduna waa magaalo aad looga adeegsado baaskiilka, waxaana laga helaa in ka badan 86,000 oo goob oo la dhigto baaskiilada, waxayna dadku door bidaan baaskiilada maadaama magaaladan dadku ku badan yihiin. waa halka ugu weyn ee laga galo Shiinaha, waxaana ku yaala mid ka mid ah garoomada diyaaradeed ee ugu waaweyn uguna mashquulka badan caalamka. waa garoonka Beijing International Airport oo ah garoonka ugu mashquulka badan qaaradda Aasiya, dhanka kalena ah garoonka labaad ee ugu mashquulka badan caalamka, waxaana ka horeeya oo kaliya Hartsfield Atlanta International Airport oo ku yaala magaalada Atlanta ee dalka Mareykanka. waxaa jirta degmo lagu magacaabo Huairu oo ka tirsan 14 degmo ee ka kooban tahay magaalada Beijing, waxayna dhacdaa dhanka waqooyi ama meel 50 kiiloomitir ka fog bartamaha Beijing. waxaa degmadan laga helaa derbiga cajiibka ee loo yaqaano Great Wall of China, kaasoo ka mid ah 7 la yaab ee caalamka. waa derbi jiray in ka badan 2300 oo sano, wuxuuna soo maray marxalado iyo boqortooyooyin kala duwan. raadka ka haray ee maanta jirana inta badan waa raadkii boqortooyadii Ming, gaar ahaan intii u dhaxaysay 1368 ilaa 1644. wuxuu ka koobnaa derbiyo yaryar oo la isaga difaaci jiray duulaanadii waqooyiga, balse Qin Shi Huang oo ahaa boqorkii Ming iyo imbaradorkii ugu horeeyay ee Shiinaha mideeyay
ayaa go'aansaday in derbiyada yaryar laga dhigo derbi aad u weyn oo difaaca xadka waqooyiga. Waxaa dib u dhis iyo qaabeyn lagu sameeyay 1957 waxaana 1987 lagu daray liiska dhaxalka adduunka ee UNESCO. Maantana waa derbiga ugu dheer uguna weyn caalamka, wuxuuna ku fadhiyaa bad ka badan 21 kiiloomitir. Waxaa sidoo kale magaalada Beijing laga helaa qasriga boqortooyo ee ugu weyn caalamka, waana goob maanta aad loogu dalxiiso oo lagu magacaabo Peking City. Waxaa deganayeen boqorro soo xukumay Shiinaha laga soo bilaabo 1420 ilaa 1912. waa halbowlaha magaalada Beijing. In ka badan 500 oo sano ayaana Shiinaha laga xukumayay, waxaana lagu tiriyaa shanta qasri ee ugu muhiimsan caalamka ee abid la dhisay. qasrigan boqortooyo wuxuu ku fadhiyaa bad gaaraya 72 hektar, wuxuuna ka weyn yahay Vatican Rome ama dalka ugu yar caalamka. qasrigan ku yaala Beijing ee Peking City wuxuu ka kooban yahay 980 dhismo, waxaana ka shaqayn jireen shaqaale lagu qiyaaso ilaa 1 milyan. waxayna halkan hoy u noqotay ilaa 14 boqor oo Shiineys ah. sidoo kale waxaa magaaladan laga helaa Tiananmen Square oo ah mid ka mid ah fagaarayaasha magaalo ee ugu waaweyn caalamka, waxaana fagaarahan taariikhiga laga helaa taalooyinka halyeeyada Shiinaha, halka loo yaqaano The Great Hall of People oo ah goob ay dowladda dalkan si kala duwan u adeegsato sida sharci dejinta iyo xafladaha qaran, waxaana sidoo kale adeegsado xisbiga shuuciga ee ka taliya dalkan. sidoo kale waxaa laga helaa fagaarahan matxafka qaranka iyo Mausoleum of Mao Zedong oo ah goob loo asteeyay laguna xasuusto Mao Zedong oo ah aasaasaha iyo aabaha dowladda maanta ka talinaysa Shiinaha ee la aasaasay 1949. magaalada Beijing waa magaalo ballaaran, waxaana lagu tiriyaa magaalooyinka ugu hawada wasakhaysan caalamka, waxaana sida la qiyaaso la sheegaa in qofka jooga magaaladan 6 maalmood uu la mid yahay qof cabay sigaar. waxaa 2008 lagu qabtay ciyaaraha Olombikada. waqtiyada ugu fiican ee magaaladan la aadana waxaa lagu sheegaa bilaha Abriil, May, September iyo October, oo bilahan magaaladan aadna uma qabooba sidoo kalena aad uma kulula, waana bilooyinka ay saxmadda ugu badani ka jirto goobaha taariikhiga ee dalxiisayaashu booqdaan.